السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلام أصحابتكم سوء هذا موقع العصب iyo qisada qaalid ayaa maanta idiin wadaa fadlan haddii janalkayga maanta kuugu horeyso muuqaalka loof noo saar sidoo kaleeto noo sii shargaray waa mahadsantihiin qisadeena aan u gudagalno qisadaaneet waxay ku dhacday nin lagu magacaabo qaalid oo u dhashtay wadanka Algeria ninkaasoo da-diisa ahayd 30 jir ayaa wuxuu ahaa nin ilaahay hanti siiyey oo markaasi hanti aad u fara badan ayuu lahaa hantida wuxuu ka dhaxlay aabihiis oo markaasi aabihiis ayaa hore u lahaa marka hooyadiis oo da-ah ayuu la noolaa qaalid ma shaqeyn jirin waxa uuna jeclaa hantidii uu markaasi aabihiis uga tagay inuu iskaga damaashaado naftiisa waqti geliyo marba meel uu aado magaalo kasta uu dalxiis u tagay ayuu iska jeclaa maalin maalmaha kamid waa halka ay qisadan ka bilaabo doonto waxa uu ku fikiray in uu saxaraha Algeria u aado daawasho naftiisana uu waqti halkaas kula soo qaato saxaraha Algeria waa saxaro runtii aad u qurux badan waxay leedahay qayb aad u qurux badan oo inaad iska soo socsocotid naftaada iska jeclaanayso marka asaga wuxuu u soo aaday halkaas daawasho saxarihii markuu imaaday uu bilaabay inuu halkaas naftiisa waqti kula qaato ayuu wuxuu meel aad u fog uu ka arkay guri aad u maleysid mudulo la dhisay oo aad u qurux badan isla markaasna aad uga fogaayeen wuxuu jeclaystay in muduladaasi guriga mudulada ka samaysan uu soo arko gurigii ayuu wuxuu socdaba gurigii aad ayuu uga fogaayay uu ku taga socod kadibna halkaasi wuxuu kula kulmay qoys halkaasi degan reer ka koobnaa gabar iyo wiil iyo sidoo kale aabe iyo hooyo gabadha iyo wiilka iyo aabaha iyo hooyada waxay ahayd dad aad u qurux badan sidoo kale gaar ahaan gabadha reerka u joogtay waxay ahayd gabar aad u qurux badan aan maleysan karin joog iyo jamaalba ilaahay u dhameeyay qaalid markuu arkay gabadhii aad buu u wareeray wuu fahmi waayay qoftaan halkee ka imaaday reerkii yaa ka darnaayo aad bay u soo dhaweeyeen si aan inaba caadi ahayn baa loo soo dhaweeyay soo dhaweyn kadibna waxaa loo sheegay caawa habeenkaas in uu guriga joogi karo ama uu jiifan karo si socodkiisa uu beri u sii wadan karo runtii reerka qaabka u soo dhaweeyeen aad buu uga helay gabadhoodina aad buu u jeclaaday qaalid marka waxa dhacday waaga markuu baryay waxa uu soo aaday markaasi halkii uu deganaa oo magaalada dhinac kamid ah saxarahana aad uga baxsaneed reerkii waa uu kasoo tagay 2 maalmood markii uu joogo xaafadoodii oo hooyadiisii ma aragta uu la joogo ayaa waxa uu go'aan ku gaaray reerka inuu ka doonto gabadhii halka uu ku soo arkay gabadha wax dad ah ama wax reere ama deganeenin oo saxaraha dhexdeeda ayay aheeday reerkaas oo kaliya ayaa deganaa guri mudulo ka samaysan oo aad u qurux badanna way deganaayeen laakiin gabadha reerka ayaaba dhex qaaday waa uu maleysan waayay qof sidan u qurux badan inay adduunyada dul saaran tahay maalintii xigtay wuxuu go'aan ku gaaray inuu gabadha reerka ka doonto waa uu baxay wuxuuna aaday reerka markuu u tagay wuxuu ka codsaday in gabadhooda markaas ay siiyaan odaga reerka lahaa oo markaas jooga ayaa gabadhiisii ogolaaday in qaalid loo guuriyo halkii ayaa qaalid gabadhii lagu soo siiyay wuxuuna usoo kaxaystay magaaladii uu deganaa oo markaas isla Algeria aheeday kadib markay gurigoodii kusoo noqdeen waxay gabadhii ka codsatay in hooyadiisa aysan la degin oo guri ayaga u gooniya markaasi ay degaan kadibna waa uu ogolaaday qaalid waayo wuxuu ahaa nin ilaahay hanti siiyey hantidii aabihiis uga dhintay ayuu marba dhinac u wadi jiray saas darteed wuxuu ogolaaday in gabadha ay maaragtay isla degaan meel ka baxsan guriga hooyadiis ay kula nooleed laakiin hooyadiis ayuu marmar u imaan jiray waxay sidaas ahaataba aroos qurux badan iyo waxaa loo sameeyay guri aan inaba caadi ahaynin halkaas ayuu gabadhii ku guursaday qaalid waxaase la yaab lahaa reerka gabadha dhalay inaysan arooska oo idilba aysan imaan gabadha oo kaliya la arkaaye sidoo kale dad badanaa isweydiinaya gabadha reerkeedii intay ka baxeen reerkii gabadha dhalay aaway laakiin qaalid laftirkiisa uusan isweydin reerka gabadha dhalay maxay aroosku imaan waayeen laakiin ugu dambeyn wuxuu naftiisa ku qanciyay in gabadhaani ay markaas reerkooda uu ka doontay isla markaasna la soo siiyay intaas wax ka badanna aysan u baahneen halka uu gabadha ka soo guursaday iyo halka uu deegaan ahaan u degan yahayna ay aad u kala fog yihiin marka muhiim ma ahan ayuu naftiisa u sheegay in gabadha reerkeeda arooska imaadaan aroos kadib maxaa dhacay aroos kadib waxaa dhacay gabadhii muddo sanado ah ayay isqabeen runtii nolol qurux badan jawi qurux badan ayay isla soo qaateen waxa ayna u dhashay caruurtaas oo ahaayeen 6 wiil oo halkii marba waxay dhalaysay 2 wiil oo mataana ah marka mataanayaashu 3 mar ayay ciyaalka dhashay 6 wiil ayayna u noqdeen
waa halka qisada ee kasoo bilaabata saxaraha uu daawashada u tagay. Kadib waxaa dhacday 6dii wiil iyo asaga iyo xaaskiisii oo jawi degan ku jiro oo aan ka qasnay noloshooduna kaala aragay iska tahay. Maalin maalmaha kamida Qaalid markuu guriga kusoo noqday xaafadda hooyadiis markuu tagay xaafadiisiina uu kusoo noqday wuxuu imaaday guriga oo xaaskiisii aanba joogin. waa uu yaabay marka uu telefoonkeeda wacayna waa uu heli waayay. Marka waxaa meel kaliya uu ka raadin kara waxay aheeday halka u dhow xaafadooda sida iskuulka iyo dukaamanka iyo meelaha markaasi uu isleeyahay waa laga yaabaa inay maanta aada ayuu kasoo raadiyey, laakiin waa uu waayay. ciyaalkiina guriga sidoo kale maysan jooginin. Marka Qaalid aad buu u yaabay. muddo 3 maalmood ayuu xaaskiisa raadinayay iyo ciyaalkeedii, laakiin gabi ahaanba waa uu arki waayay. wuxuu go-aan ku gaaray in uu aado reerkeedii sida hooyadeedii aabaheed iyo walaalkeed si markaasi uu usoo weydiiyey in gabadhoodii timida guriga laga yaabay in halkaasi ay aaday. maalintii dambe ayuu baxay Qaalid wuxuuna aaday saxarihii halkii gabadhii markii hore uu kusoo arkay, kusoo jeclaaday, lagu soo siiyey, uu kasoo kaxaystay ayuu aaday. laakiin maxaa dhacay? saxarihii markii uu tagay gurigii berigii lagu soo dhaweeyey mudulaha ahaa ee quruxda badnaa ee daraandarka markaas ku noqday meesha wax guriga kumaba oolin, laakiin asiga ayaa u maleeyay in waxaana guri ay yihiin. halkaasi waxaa deganaa qoys jinni ah, laakiin mar dambe ayuu ogaaday reerka markii gabadha markuu guursaday kadib maaragta guriga loo keenay ciyaalka badan ay u dhashay. marka asiga wuu noqday xaafadii ayuu ku noqday, laakiin wax deegaan ah halkaasi kuma oolin, wax reer ahna muusan kusoo arkin. aad buu u yaaba, wuuna qaracma, wuuna naxay. meel uu wax ka bilaabo ayuu gara waayay. naftiisii ayaa cabsatay. kadibna isla markaas asiga hore kama ogaan in gabadha uu guursaday ay jin aheeday. sidoo kale qoyska sida quruxda badan usoo dhaweeyey guriga mudulaha ka samaysnaa uu arkayay waxaasoo dhan in ay waxba ka jirin oo markaasi qoyska uu u tegay qoys jinni ah ay ahaayeen. mar dambe ayuu ogaan doonaa. waa uu soo baxay Qaalid oo aad u yaaban, meel wax ka bilaabo la. reerkii gabadhii dhalayna soo waayay, sidoo kale gabadhiina meel uusan ku sheegin ayaa gurigiisii kusoo noqday. fikir ayaa u bilowday. muddo dheer ayuu noloshaasi ku jiray, muddo adiga 3 sano 4 sano ku dhowaad ah. intaas wuxuu raadinayay xaaskiisii iyo caruurtiisii iyo sidoo kaleeto reerkii ay ka dhalatay gabadha, laakiin qof kamida ma uusan arkin. xitaa wax aqoon ule oo ka sheekeynaya ama arkay maysan jirin. markaa kadib isaga oo haban ayaa maalin maalmaha kamida albaabka waxaa soo garaacay wiil yar oo markaasi kamid ah wiilashii uu dhalay ninkan lagu magacaabo Qaalid oo gabadha jinni ay dhashay. laakiin gabadha mar dambe ayuu ogaan doonaa in jin aheeday. gabadha quruxleyda ee isbedeshay ay dhashay ayaa guriga usoo garaacay. kadibna wuxuu markaasi caadi ayuu u salaamay, waa uuna soo dhaweeyey, waxa uuna ka codsaday wiilkeeda inuu fadhiisan karo. waa uu la fariisiyey, waa uuna soo dhaweeyey. kadib sheekaa dhexmarta waxa uu u sheegay wiilkii yaraa Qaalid inuu aabihiis yahay, isla markaasna gabadha quruxleyda ay dhashay. Qaalid waa uu maleysay waa 2 sano canug waa ugu dambeysay. hase ahaatee canuga aad buu u qurux badnaa, hooyadiisba waa uu kasii qurux badnaa. kadib wuxuu dhahay sidee ku noqon kartaa wiilkayga? wiilka wuxuu u sheegay qisada jirta, waxa uuna aabihiisa Qaalid uga waramay in markaasi ay jin yihiin, isla markaasna awowgiis iyo sidoo kaleeto reerkii markaasi gabadha ee ka dhalatay ee saxaraha uu kusoo arkay ay jin ahaayeen. hooyada dhashay gabadhana ay jin aheedeen, isla markaasna canuga yarka xitaa uu jin yahay. laakiin Qaalid waa uu aamini waayey, aad buu u naxay, wuu gariir, istaag ayuu ka dhacay. dariska oo dhan ayaa isku soo baxay, hooyadiisiina waa ay imaaday, laakiin maxaaba waxba laga qaban karaabo. wiilkii sida uu u sheegay ayay arrin noqotay. gabadhiina dib dambe looma arkin, sidoo kaleeto reerkii ay kasoo jeedayna dib dambe looma arkin. laakiin wiilka yarka waxa uu sheegay in hooyadiis weli iyo reerkoodii ay saxaraha degan yihiin, laakiin asagu uusan rabin in uu u geeyo ama in ay is arkaan. marka Qaalid noloshiisii waxay noqotay nolol yaab iyo amakaag iska noqotay. waayo ma fiilanaynin gabadhii quruxda badneed uu hal habeen mudulka kusoo arkay inay aheeday gabar jinni ee wuxuu u maleynayay gabar caadi inay iska aheeday. khasaarada ku dhacday waxay ahayd in ciyaalkiio idil ay ka kaxaysatay oo ay ka wadatay, ayadiina nafteediiba ay ka tagtay oo dib dambe aysan ugu soo noqonin. marka sidaas ayay sheekadiisii Qaalid u taagan tahay oo ilaa haddadan cunugiisii yaraa oo keliya ayaa la joogay. 5tii canug iyo hooyadood meelna kuma sheego.
markaa qisada runtii aad bay iiga yaabistay. Jinku dadka wuu soo dhexgalay ayaa maqli jiray, laakiin sheeka u haysan jiray oo qisooyinka badanaa waa looga hadlaa. Marka wax caadiya oo dhaca oo adduunyada ka jiro ayayba u eg tahayba. runtii aad baa ula yaabay qisadan, aad baan uga cabsaday markaan aqrinayay. Sidoo kale adigan inaad ka cabsata ayaa laga yaabaa, oo gabar kasta oo qurux badan aa aamini weysid, ama wiil kasta oo qurux badan aa istidhaahdid qofkan amuu jin yahay ama gabadhan amay jinniyad tahay. Marka waa mahadsantihiin asxaabta. Si aan muuqaalada usoo badiyo waxaa idinka codsanaya inaad videoga loof noo saartaan, sidoo kale aad noo sii sheer gareysaan. muuqaalkan muuqaal ka duwan intaa ku kulmeen waxaa idin leeyahay nabadgelyo. videoga ha iloobin inaad asxaabtaada la wadaagtid.